Bismillah, assalaamu calaykum. Waa idin salaam asxaabta meel walba aad joogtiin. Kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. Maanta waxaa rabaa inaan idinla share gareeyo soos yar oo shawarma soos ah. Waxaa rabtid aad ku cuni kartid oo aad u macaan oo aad uga maarmanaysid tii aad banaanka laga soo gadayo waqtiga maqaayadaha maadaama ay xiran yihiin. Garlic sauce ma u baahanaysid marka anaga guri ku sameysanayno. Marka waxaa rabaa inaa idinkana raali geliyo fiidiyooga aan soo geliye aan ka saaray waa idinka raali gelinaa aad iyo aad uga xumahay ciladaa ku imaatay fiidiyoogaas saas darteeda uga bixiyay haddana raali gelintaana idinku soo duubay iyo sooskan yarkana inaa idinla share gareeyo marka ka raali noqda insha Allah gadaala ugu soo celin doonaa marka hadda sooskeena haddaa guda galno waxyaalaha u baahanahana waxa waaye 2 qaado yogurt 2 qaado mayonnaise iyo 1 qaado bar saliid saytuun iyo 1 qaado qal 3 xabo tuun iyo liin dhanaan iyo cusbo yariis iyo wax yar filfil iyo oregano heesta iyo kabsara heesta bisbaas waa ku darsan kartaa laakiin bisbaas ma u baahanaysid filfisha aad u kulul toontana aad u kulushahay marka waxa isku darsanaynaa yogurtka ka bilaabeena iyo alaabta yar isku dareena marka u dambeysana waxa ku darayaa mayonnaise iyo saliida ugu dambeysiinaya waxa is dhex gelinaya alaabtan kala isku dhex dara yogurtka iyo spice-ga oo oregano iyo filfilka iyo toonta iyo intaas isku dhex dara marka waa kaasa haddana inaan shiidanaa rabnaa cusbada ku dara wax yar cusba ku dara waxa ku daraya qalka haddana ku daraya intaana si fiican isku dhex gelina waxa ku daraya liin dhanaan waaye hal qaado liin dhanaan 3 xabo toon waaye bisbaas adi hadaarto ku darsan kartaa saa hore ku idinku sheegay laakiin anima ku daray ilmaha saane ku cunayaan bisbaas kuleel zaid ku noqonaa kabsara ku daray waxa ku daraya oregano ku daraya wax yar ku daraya marka waxa ku daraya qaado halfkeed camal ku daraya si ay caraf u siiso iyo tastiga u macaaniso taste fiican siinay wax yar filfilna waa ku daraa intaas marka isku daro kadibna waxa ku daraya qaado iyo wax yar saliid 2 qaad waa ka dhigi kartaa saliid saytuun waaye inta rabtida ka dhigan kartaa iyo maxaa la dhahaye iyo mayonnaise kana 2 qaad waaye ku daraya kadibna waa soo shiideena suuq soo baxa arkeena mayonnaise iyo marka ku daro iyo saliid cadee hadaarto isticmaali kartaa ana hadda labada nooc isticmaalaya olive oil waaye iyo light mayonnaise kan aad u light u yahay heavy ma marka waa soo shiidaya qayladiisa idinka xiray waa kaasa marka asxaabta diyaar waaye marka weela ku shubanaysaa fridge-ka gashanaysaa marka ani hadda weelkaan rabaa inaan ku shubto weel dhala fiican inaan ku shubatid ama caag fridge-ka gashatid alaabtan ayaan dhanay ku haynay ilmaha ay jecel yihiin jibsiga pizza wax kasta oo ku kor shubanayaan garlic sauce ma u baahanaysid kana kaaga filan wax kasta marka inta ku shubana wax yar soo haray wax yarna hadda la isticmaalaabo marka waa kaasa waa kana marka sauce caadi ahaan ku soo baxay maasha Allah taste waaye kuleel waaye xataa bisbaas ma u baahanaysid filfisha ku filan marka daaniyada yar ku soo qurxiyay intaas oo ii noqday labada qaado oo mayonnaise iyo maxaa la dhahaa yogurtka marka intaas idinla share gareynaayo waana idinka raali gelinaa fiidiyooga pizza soo geliya ka saaray gadaal ugu soo celin doona insha Allah aad u mahadsantiin asxaabta maxaa la support-ka ay siinaysiin dhiirigelinta wax kasta asxaabta cusubna aad u mahadsan yihiin subscribe iyo like iyo share
ii saara insha allah idinkoo ku mahadsan. Marka insha allah sidaas iyo the next video. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bye.